حاج محمد saddex maamul waxay isla safan yihiin dawladda labana dawladda ay ka soo horjeedaa waxay isku group yihiin dhinaca mucaaradka maxaa ku muuqan kara marka aad fiirisid kala fogaansho intaas leeg saddex maamul maxamed cabdullaahi farmaajo soo samaystay caruurta xataa og yihiin mid walba uu ku daadiyay baawro muxuu xabadu karin buu diyaarada kaga soo dejiyay ragga la baratamay buu xiray oo gudaha dhigay sheekh mukhtaar rabow oo murashax ahaa maalin cad baa baarlamaanka gudaheeda lagu xiray wali waa xiran yahay maxkamadda lama keenin isagaa madaxweynaha lafta kale keensaday caruurtana waa og yihiin dhiig baa ku daatay ra'iisul baarlamaanka wuxuu ahaa xafiiskiisa ninkii madaxda ka ahaa waay saraakiisha golaha wasiirada kullu isagaa samaystay hirshabeelle goodlaawe isagaa keensaday oo kii hore ka saaray ninka la yidhaaho xaaf iyo muxuu ahaa culimmadii meesha awal haysan jirtay oo ahayd ahlusunna wajamaaca maalin cad baa xabad looga saaray dhuusamareed oo dawladaha sida caawareegale wixii ka soo haray wax badan waa dhinteen saddex gobol dhiig buu ku daadiyey isagaana magacowday labo ayaa ka baxsatay oo dhaawac ah puntland electionkeedii waad ogeyd rag buu maal soo maalgeliyey waa ka badbaaday jubbaland waa dhaawac nus buu hadda qabsaday qaraxyadii kismaayo ka dhacay waad ogeyd wixii dhibaato ka dhacday waa ogeyd maalgelintuu soo galay waa ogeyd labadan horta waa dhaawacan yihiin in la sii raaciyo bay diidan yihiin adigu laftigaaga nin hadduu xabad kugu dhuftay inuu ku sii raaciyo ma jeclid intaad ka badbaadi kadho baad ka badbaadaysaa horta labada tan dadku qabiil uma arkaan hadda isagay la qabiil yihiin isaga bay la qabiil yihiin marka qabiil la yidhaaho laakiin dhaawacu dhaawacay xanuunkeedii bay og yihiin iyo raggii hore wixii ku dhacay horta meeshaan waxa weeye dadku inay isfahmaan baa loo baahan yahay meesha tan nidaam aan kharaarkiisa soo aragnay oo dhibteeda soo aragnay ayuu rabaa ninkan dhallinyarada ah iyo waxa ku hareeraysan isaga inay ummadda dib ugu celiyaan laba arrimood ummadda Soomaaliya dib dambe ma rabta inay ugu noqoto keligii taris dambe oo maxamed siyaad barre ka dambeeya ummaddaana diyaar uma ah not acceptable labo ciidan qaran leeyahay in ummadda lagu dilo oo lagu dhaawaco oo lagu dhaco oo lagu qaxiyana mar dambe ma rabta inay dib ugu noqoto madaxweynaha maanta jooga Allah hanuusho wuxuu rabaa labada inuu soo cesho dhiig dambe muqdisho 100 kilomitir qof baa ku aasan madaxtooyada uu caawa isaga fadhiyo horaan ugu sheegay isaga laftigiisa kullu maqbara weeye qubur waay maxamed siyaad barre wixii kaga dhintay dagaaladii meesha ku aasan yihiin cabdullaahi wixii kaga dhintay meesha ku aasan yihiin sheekh shariif wixii kaga dhintay meesha ku aasan yihiin horta villa Soomaaliya waa maqbara arwaax dhimatay baa ka dhex dhawaaqaysa muqdishona waxaa soo meeyda oo madluumiinaha ku aasan horta meesha shirka la rabo in lagu qabto lagu hadlo raxmadda ilaahay waa ka fogtay intaasoo goor waa meesha sharciyada ilaahay lagu diiday waa dadkuna waxay rabaan ayuu aan toobad keenin ilaahay inuu siiyo muwaafaqo inuu siiyo tawfiiq oo qulubtooda inuu madeeyo xaasha lillah meel aan ilaahay raxmadiisa u soo jeedin in laga helo muwaafaqo iyo midnimo iyo isku magaratay muxuu ahaa tanaazul iyo horta ha sugin nimanka ishaya hadda aan magacyadooda maqlayno kulligood maca labada hadda aad sheegayso nimaan laacaluush ku imaan miyaa kursiga jira ma taqaan adu هذا نوشي ما حيكون شيء غير هذا يقول ما هذا الشيء نوين باتها الشيء باتها وجوله باتها ما هي سياستنا وكسرتها أن مستقبل كاغواي سما قرن مركز شنطة قبل وما أنت ماشي فرده يا محمد عبد الله فرماجو نمن لا لوش كرسي كل ماشرة حلقة بقيس ما لعنة إله من كل عدم من كل عدل وكل عدل لعن الله النبي نوشي عليه السلام عرض الله كل عدل وكل عدل
الراشي والمرتشي كو برلمان كذا شيء يسوي مرتشين تما كل لالوش قاعد سوما dadka noocaasa oo Soomaaliya wax ka sugayso oo Ilaahay uu leeyahay in Allah la yusrihu amal mufsidiin marnaba aan lagu liibaanayn adiga ma kula tahay inay bari iyo saadamada isku yimaadaan muwaafaqo iyo wax Soomaali mustaqbalkeeda u wanaagsan in la iman karaan marka ama laba dheh ama saddex ka soo horjeedo horta malcuuniin waa nacad Ilaahay ba ku dhacday ya ma dhamaantood هذا ما أنتوا ذوقوا على واحد وين برلمان كنا لا لوش قادين يشرح واقعتين لا لوش عنوان لا لوش بكل سوقري لا لوش بكل شوقة هبين مارن هذا أق كان كامل نوها يا أق أنا أق شعب سواء الدوام يا أق معها إن رواية كنا ورانا الله مرة ريالتي أنا تابعنا اللوز الحين ومدنا على كل عري يا يومد يد كل جت رال كوه ربنا إسرائيل هاي محون عرض رال وحي كنا قضين وحي حماء وجربي كدي واين إلى يوم الدين عرض كل عري مقررتها هي ومدنا هذا السومالية وكنا أفرت بقول صار المسلم كأ إن السنة عرض ما أنت ندرس سعرين وعرض إلهي ندرس سعرين ندرس سعرين marka waxaan ku sheegay waxa weeye ama laba versus saddex iyo mucaarad leh kuwa mucaaradka sheegayso lafsigooda hadda madaxweynimada raba laaluushku soo roga laaluushku kursi ku yimin maaha oo laaluushku ku fadhin jiray Soomaa ahlu laaluush qabiil la yiraahdo koox la yiraahdo way waxa Soomaaliya saysa ummadana Ilaahay waa ku saliday ummadana ummad ducadeeda maanta la aqbalay maaha Ilaahay garowsiyo la timaado oo iyadoo ay la timaado inay Ilaahay rajuuc ila Allah la timaado iyo toobad ما قرأت محوها خالصة أنت تاس مقنتهاي هو هذا واسكس عنيسا طرحية ذو ما قرينا لمشى وأركينا وحب عادي إنه نقطة لوش عادي إنه نقطة قيادة حنو نك كان وقف الدكتور كعادي إنه نقطة وحلا دعي ظلم عادي إنه نقطة يا وح الله وحي حن أردن ومجتمع وكل يديرها أردن maadaama aad dhanka culumadana aad naga xigto waxa jira leeyahay oo lagu xagliya culumada qaar inay dawladda maaragtay ay taageeraan bal arintaas ka horreeyay fiiri culamaa ul-suu iyo culamaa ul-xukuuma iyo culamaa ul-baatil weligeed waa jirtay weligeed inta adduunyada soo jirtay horta waa jirtay qofka waxa roon inuu aakhiradiisa iyo khaatimadiisa u ka fakaro ومصلحة بني آدم ومدي سينو كفكر على اللوبة هنيه انتو سوقعت على وجيس إلهي ههنوني وأنا صاحبك إلا هنوشو انتو مكرفون سوقعت إنو يراهو وحن كل دارنا إياه هدي محمد عبد الله فرماجي ودب وصول نقضه يا إن الصومالي برواقع قريش مثل أمد الصومالي وحسوسنا إياه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نوشي غي وصحيحة أول من يدخل في النار منك أبوه الرئي النار تقلي دونه وعالم دو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام علماء كل شيء عالمك أول من يدخل في النار وعالمك هو مرك إلهي كمان على وجيس لكن طريق صعده طريق قلتموه بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كو كان بريمير بانك فائدوينك بريمير وولت وحا كمدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier